mataanaha Minneapolis iyo St. Paul alaaba waxaad naga daawataan aababkeena kala duwan oo kala ah Roku Box, Amazon Fire TV iyo telefoonada gacanta Android iyo iPhone-ka. sidoo kale waxaad iska register gareyn kartaa si aad noo daawato somalianomadnetwork.com. maanta waxaanu halkan ku qaadaa dhigi doonaa barnaamij gaar ah oo aan kaga hadli doono tagitaanka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ku tagay Hargeysa, iyo sidoo kale waxyaabaha kale oo aan kaga hadli doono waxaa ka mid ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo siiyay raaligelin ka siiyay dhibkii ka dhacay gobolada waqooyi iyo sida loo arko. waxaa ila fadhiya afhayeenka Khaatumo iyo Maakhir oo markii labaad aanu dib u kulanay. boos ku soo dhawow Ali Boos, somalianomadnetwork.com. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. aad baa umahadsantahay war dheere walaal adiga iyo dadka na daawanaya Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan salaamayaa waana ku mahadsantahay inaad fursad labaad siiso arrintan hadda taagan adiga wareysatid. boos sidaa la socoto Ali Boos, sidaa la socoto madaxweynaha dalka federaalka Soomaaliya wuxuu raaligelin siiyay dadka reer waqooyi. ma uusan sheegin wax la yiraahdo Somaliland. raaligelintaasi Khaatumo iyo Maakhir ma ku jiraan? maxaad u malaynaysaa inuu madaxweynaha uga jeeday raaligelinta reer waqooyiga siinayay? bismillaahi raxmaani raxiim. walaale waxaan ognahay in maalin dhaweyto safar aan kulan hore loo shaacin ay kulmeen ninka la yiraahdo Farmaajo oo madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ay ku kulmeen Ethiopia. waxay ku wada hadleen garan mayno. markuu soo noqdayna Farmaajo khudbad ayuu jeediyay uu leeyahay waxaan raaliginayaa dadka reer waqooyiga. laakiin anigu sidaan u fahmayo ilaan reer waqooyi dad badan baa reer Khaatumo waa reer waqooyi, reer Sanaag waa reer waqooyi oo dadka Sool Sanaag cayn degan, reer Boorama waa reer waqooyi, dhulkii waqooyi Soomaalida waqooyiga la isku oran jiray. laakiin hadalka wuxuu u waday Somaliland dadka u ololeeya ama beesha reer Sheekh Isaaq oo aan sidaan ogsoonahay dagaal ay la galeen dowladii Maxamed Siyaad Barre. dagaalkaas oo dhibaatooyin fara badan iyo khasaare badan ay ka soo gaaray. shacab badan oo dadkaas beesha u dhashayna lagu dhibaateeyay. waxayna ila tahay raaligelintaasu arrin sax ah oo ku habboon oo mas'uul Soomaaliyeed inuu raaligelin dadkaas siiyo ay tahay. raaligelintuna waxa way Soomaali oo dhan baa dhibaato ku dhacday, iyaga kaliya kuma ay dhicin. laakiin iyaga haddaan waxaan ka xasuusto aan dib ugu noqdo walaal waxaa jirtay dhammaadkii 80-aadkii inay dadkaasi aqoon-yahankoodii iyo waxgaradkoodii intooda badan ay yiraahdeen xukunkan dowladda Siyaad Barre dowladda kacaanka waxaan ku qabnaa dulmi. ay kadibna ololayeen jabhado inay ka soo noqdaan dowladda dariska aan lahayn ee Soomaaliya marka cadaawadu ka dhaxaystay Mingista. halkaasna uu dagaal ka dhacay. dowladdiina ay markaas shacabkii dadka joogay cadaadis badan ku samaysay baan ognahay. waxaan ognahay diyaarado dowladda Soomaaliya ay leedahay inay duqeynayeen dadkaas. waxaan ognahay dadkaas oo aan loo aabayeelay numaato iyo caruur in dhibaato badan loo geystay oo markaas u geysanayay calankii iyo qarankii markaa jiray. waxaan ognahay dadkaasi inay ku dacdaroodeen ama ay ku dhibaatoodeen xiriir qaxooti ku yaala Ethiopia sida Dulcad iyo Daroor iyo meelaha noocaas ah. waxaan ognahay dad iyo dunyaba inay ku waayeen hantidoodii iyo guryahoodii inay ku burburtay. waxaan ognahay xitaa Soomaalida kaleento inaanay dowladdii aanay ka soo horjeesanay dadkaas xitaa aflagaada loogu diray jiray oo sida Muqdisho joogay anoo dhalinyaro yar marka waxaa dadka loogu weeri jiray xabad keenta markii laba qof isqabtaan oo qofka accentkiisu inuu waqooyi yahay la garto war naga tag xabad keenta iyo iyadoo la yiraahdo iyaguna waxay oran jireen xabad sugatiin sababtoo ah waxay saadaalinayeen sida qacdoonka bahalkiya. walaal raaligelintaas waxaan rajaynayaa dadkaas ama beesha reer Sheekh Isaaq inay bahalkiistaan inay aqbalaan haddii mas'uul Soomaaliyeed bahalkii. at the same time waxaa jira Soomaali fara badan oo loo geystay
dhibaatooyin tacadiga u geystay inkastoon aada u yaraa waxaa jiray markii gobolada mudug ama dhulka majeerteen loo yaqaano jabhaddii SDF ka soo baxday oo iyaga laftoodu ay filanayeen dulmi inay ku qabaan dowladda oo ay baxeen oo ay jabhadeeyeen in sidaas loo dhibaateeyey oo magac iyo hayb sooc lagu leynayay barkadahoodii la jijabiyey maxaan ku idhaahdaa qofkii la sumeeyey ay dowladda kacaanka ay dhibaateynaysay weliba dadkaas marka dadka reer waqooyiga ahay ama beesha reer Sheekh Isaaq dee macnaha xilligaas kamay kicin iyagu dowladdiiba saraakiishoodu la shaqaynaysay maxaan ku idhaahdaa dad fara badan oo kamid ah Muuse Bixiga haysta xitaa wuxuu kamid ahaa dowladdii markaas Siyaad Barre oo wuxuu ahaa nin ciidamada cirka ka tirsan Soomaaliya marka Soomaaliya oo dhan baa isdulminaysay waxaad ogtahay in Muqdisho dad lagu dhibaateeyey waxaad ogtahay waxani Soomaalidu dhibaato ku filan dowladdii ama ha u geysato ama system qabiil ha lagu geysto way dhacday waxaad ogtahay aan ku dhamaystiro iyadoo taasu jirtay in haddana beri dhaweyd aada ogeyd dowladda Somaliland oo dee dowladnimo sheeganaysay muddada intaa leeg inkastoo qabiilka reer Sheekh Isaaq keliya ay arrintaas ay iyagu aaminsan yihiin haddana inay weerar ku soo qaadeen sida gobolada buuhoodle ereyda kalshaale iyo waxnaas halka xasuuq fara badan iyagoo magaranaysaa dee dhibaato loogu geystay marka anigu waxaan oran lahaa Soomaalidu si loo heshiiyo heshiis dhab u yimaado waa inuu ka dhacaa heshiiskii Rwanda oo kale oo dadku ay Israa'iil geliyaan waxaana kamid ah geesinimada qofka bini'aadanka inuu yiraahdo walaalow waan kugu gafay raali gali aan raali galintii ka qaato laakiin haddii la yiraahdo waxaan shir baa loo qabtay Soomaalidu sideeduna in fact iyadoo saas oo tahay dhibaatooyinkaas oo dhan kala gaareen ama system dawladeed ha u gaaran ama system maxaan ku raahdaa ama hab qabiil ha u kala gaareen laakiin waxaan ogahay in Soomaalidu ayna qabiil ahaan isu haynba marnaba isma lahayn Soomaalidu bal u fiirso qof kasta oo qabiilkii iyo dariskaaga waa la macaamilaysaa business bay isla furtaan waa isla raacaan waa kala guursadaan waa wada sheegistaan dunida qabiilka isu laysay xitaa meel ma wada istaagi karaan way kala cararaan xitaa magaalo ma wada istaagi karaan laakiin Soomaalidu ilaa 60kii ka hor ilaa weligeed siyaasadda kamayna heshiin siyaasadana mar walba waxaa jirta dulmi la isu geysto Soomaalida oo qabiilba qabiilku ka yaryahay waa garanay haddaan xogaa dib u soo noqono farmaajo raaligelin buu siiyey wuxuu isticmaalay ereyga reer waqooyi buu isticmaalay ereyga ma isticmaalin Somaliland ma uusan isticmaalin reer waqooyi buu isticmaalay sida hadda ka dhawaajinaysana reer waqooyiga laftooda isdulmiyey oo dhib badan isu geystay arrinta marka sidoo kale dadka Soomaalida saad la socoto guud ahaan dowladda Maxamed Siyaad kaliya dhib kuma aysan sameeynin reer waqooyi kaliya kuma aysan sameeynin marka miyaan madaxweynaha xaq loogu lahayn dadkii Soomaaliyeed ee kale la dulmiyey ama gobolada dhexe lagu dulmiyo ama bay ha lagu dulmiyo ama jubbada hoose ha lagu dulmiyo dowlad weyn oo shaqeynaysa ahay oo system shaqeynayo ahaa muxuu madaxweynuhu u doortay inuu hal qolo kaliya qofka ma in diyaarad lagu dilo iyo in taangi lagu dilo iyo in AK lagu dilo maxay difference leedahay wallahi horta aan hadalka dib ugu noqdo farmaajo waxaan u maleynaa weliga Hargeysa inuu tagay waqooyina ma yaqaanba isaga ba sheego balcad Soomaaliya dhaafin buu yiri bariga Puntland tagay isagoo dhalinyarada uu ka soo tagay Mareykan laakiin reer waqooyi wuxuu u yaqaanaa beesha reer Sheekh Saasaan ugu dareensanahay hadalkiisana macnaha hadalkiisa loo dhigo baa la balkaya macnaha soo dhawaaqay laba toodkan qaadanayna wuxuu uga jeedaa beesha reer Sheekh Saad ee jabhadii SNM intay ka kacday kadibna dawladii jabhad iyo shacab israacisay oo dhulkoodii dad iyo dunyaba baalkii hal raali geliyo arrintaas dad badan baa ku kala aragti duwan dad badan baa si kala anigu waxaan leeyahay hogaamiyayaasha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ha loo sameeyo heshiiskii Rwanda oo kale ka dhacaya oo hal la yiraahdo war wixii tagay in dhaafe wixii ka dambe aynu iscafino oo dad walaal noqono laakiin inta uu ninka reer Hargeysa joogan uu leeyahay maalin walba xabaal qodayo oo leeyahay xabaalii dadkii la soo saaray oo soo saarayo oo aanay waxba erintaas bedelayn uu leeyahay koonfur baa igu soo duushay koonfur baa la midooba igu soo duushay ninka koonfureedna uu leeyahay maxaan ku radaa
leeyihiin dee jabhad bay dawlad bay ahayd oo waaba arrintaas macna samayn mayso waa ila meeraysada la sheegay marka sida la socoto madaxweynaha dawladda federaalka iyo biixi waxay ku kulmeen sababa isla markii uu madaxweynuhu ka yimi Addis Ababa wuxuu jeediyay arrintan ah raaligelintu jeediyay la kulanka uu madaxweynuhu la kulmay biixi sidaan ognahay reer Khaatumo iyo reer Maakhir oo aad afhayeenka u tahay ereyada uu isticmaalay reer waqooyi bay ahayd ma u muuqataa wixii hadda ka dambeeya tegitaanka la tegi doono sida inuu u socdo meesha la yiraahdo Hargeysana waa soo cadaatay oo runtii wax hadda maanta shaki ku jira ma ahan marka ma asaga wakiil ka noqon doona reer waqooyiga oo dhan marka lagu daro Khaatumo iyo Maakhir ka noqonay biixi wallahi horta Muuse Biixi iyo Farmaajo inay kulmaan arrin loo baahnaa bay ahayd madaxweynayaasha horena aanay samayn dadka walaalaheena reer Somaliland de waxbay tirsanayeen ama beesha reer Isxaaq reer Sheekh Isxaaq waxbay tirsanayeen in la kulmo moogtay Soomaalidu waxay tiraahdaa aan wada hadalno oo aan heshiino way baalkisan kelmadan oo aad ruuqooy aad ku soo celisay inay wax uga jeeda anigu waan aaminsanahay beesha reer Isxaaq waa gartay waa go'nayda haysta Somaliland waxaa degan dad aad u fara badan baa degan beesha Warsangeli baa degan dhulbahantaa degan waxaa degan Gadabiirsi baa degan Ciisa degan Fiqishini baa degan oo beel habargidira waxaa degan Gabooya degan waxaa degan dad aad u fara badan dir iyo daarood qabiilooyinka Soomaali qabiilka maqan ma jirto marka reer waqooyi hadduu yiraahdo reer waqooyi la raali geliyo reer waqooyiga qaybtood baaba waxay aaminsan yihiin reer Shakhsaaq waxay u haystaan qaybina inay faqash ahayd oo dawladii taageersanayeen qaybina ay ka soo horjeedeen laakiin anigu waxaan u malaynayaa inuu uga jeedo maxaan ku raabay beesha reer Shakhsaaq arrintan uu aad leedahay Muuse Biixi baa wakiil ka noqonaya haddii Muuse Biixi wakiil ka noqonayo kelmadda reer waqooyi ee Farmaajo uu sheegay kaliya wakiil laguma noqon karo waayo dadka reer beesha reer Shakhsaaq muddo 30 sanadooda bay lahaayeen waa go'nay dadkaasna Somaliland baa nala wadaagay Ingiriis baa wada go'ayso waa isla go'nay oo arrintaas suuroobi weeyay marka wixii de shalay la taagnaa hadii lagu soo celceliyo waxa weey insanity qofka waalida waxa lagu gartaa say mistake buu ku celceliyaa marka anigu hadda waxaan u arkaa in xal isu soo dhawaasho ay tahay hadii la leeyahay dadka reer waqooyiga maxaan ku raada ha loo garnoqo oo loo helbiye qaybiyana ama wax deemiska ha ku wada hadlaana waxay noqon kartaa in la yiraahdo waqooyi si dawladdiisa aad barre waxay kaga tagtay 5 gobol gobolka Sanaag gobolka Sool gobolka Togdheer gobolka Waqooyi Galbeed iyo Awdal 5 gobol ayaa saamay qaybsi caadi ah loo sameeyaa waa hadii magaranaysa systemkan federalismka la iskaga tagaba oo leeyahay maxaan ku raasida loo sameeyo laakiin anigu hadda arrintaas inay xaggaas u dhan tahay u malayn maayo waxaad malaynaysaa sideedee idin saameyn doontaa waa ogtahay dawladda federaalku Somaliland ma aqoonsana oo dawlad madax bannaan ma aqoonsana wada hadalkiina hadda waa la bilaabay sida aan la soconana dawladda federaalka ama Maakhir ha noqoto ama Khaatumo ha noqoto aad bay isaga ilaaliyaan inay ama iyagoo Puntland ka baqaya ha noqoto ama iyagoo Somaliland ka baqaya ha noqoto dawladda federaalka kuma dhiirato inay dadkaas soo dhaweyso kuma dhiirato kulamo waaweyn oo muuqdana ma samayso haddii wax dhumasho ah sameeynin haddii marka si public maanta madaxweyne Farmaajo ula kulmaya Biixi miyuusan halkaas jirin la kulan la'aantii horay loo xaqirayay dadkan degan Khaatumo iyo Maakhir degan hore loo xaqirayay miyaysan maanta ahayn Farmaajo waxa uu meesha ka wado inuu dadkaasi inay wakiil ka yihiin maanta uu sheegay sababta cidna lama socodsiinin reer Maakhir lama socodsiinin tagitaankaana dawladda federaalka meesha tagis madaxweynihii weey miyaysan ku muuqanin hawshan hawl gacanta ka baxday oo tahay wixii hadda ka dambeeyay ninkan uu noqon doono ninkan laga xisaabtami doono way ilaa ninkan ma dhihin reer Sheekh Isxaaq ma dhihin afkiisa gobolada waqooyi buu yiri wallahi Soomaalidu horta waxay tiraa warjiraaba cakaaro imanaya waa gartay ma fahmaysaa Farmaajo waa madaxweynaha Soomaaliya loo aqoonsan yahay dadkaas oo dhan isaga xukuma ma fahmaysaa hadduu dadkaas Soomaali wax ka tirsanaya ee beesha reer Sheekh Isxaaq arrintooda de oo cudur bixinayo oo la bahalkeenayo annagu waa dad walaalaheena dib uma qabno
laakiin goboladan sool iyo sanaag iyo cayn dadkooda waa tashadeen go-aan bayna gaareen inay maamul samaystaan soomaalida kaleento walaalahooda ama reer sheekh ha ahaadaan ama dadkan puntland degan walaalahoodna si ma garanaysaa deris wanaaga dabka ay u kala qaataan ma fahmaysaa waa systemka federaalka soomaaliduna dee waa dad ehelooda isu safro bahalkii wax dhibaata kuma jirto una malayn maayo inuu farmaajo saa samayn doono sababtoo ah wuxuu og yahay hadduu waxaa sameeyana dee waxaa weeye waxay noqonaysaa dee ma garanaysaa waxay noqonaysaa hoggaan xumo bay ku noqonaysaa inuu yidhaahdo 30 qof oo ma garanaysaa 30 sannadood wax suurogeli waaye inuu yidhaahdo okay waa kugu meheriyey waa kana iska haysto oo maaragtay ma dhacayso mana u malayn doono inuu saa samayn doono ololaha aada bilowdeen oo maamul goboleedka aad rabtaan inaad samaysataan Rabakhir iyo Khaatumo waxaa muuqata inaad ku aadiseen waqti isbedel badan u ka jiro geyiga ma la dhihi karaa waxaa isu diyaarinaysaa inaad waqooyi galbeed ku biirtaan oo aad ku biiri doontaan Somaliland aan u malaynayaa wada su-aashaas wardheho adiga kaama puntland bay ka timid baan u malaynayaa su-aasha waa ku weydiinayna su-aal dad Soomaaliyeed oo dhan ay qabaan su-aashan waa soo noqnoqotay nimanka walaalaha iyo reer puntland oo weliba rag badan oo asxaab nahay baa waxay leeyihiin nimanka Khaatumo iyo Maakhir baa midoobay loo ololeynaya qayb ka horeysana horey u aadeen Hargeysa kuwana waa ka daba socdaan walaalayaal waxaan idin leenahay oo aan ku leeyahay qofka hadduu geel jiray yahay geel jiru waa qof geel dadku u dirsadaan geel u raaca hadduu intuu geel ka tago geel kala tago waxba uma soo kordhaan waxa u soo kordha kaliya hasha magaceed sax ma fahmaysaa annagu intaan dhan Soomaaliland Puntland baanu ka baxnay haddana Soomaaliland macna samayn mayso waxa ololaha iyagu uu ku salaysan yahay waxa weeyaan kaliya inaanu dadka iyo dalka iyo deegaanka aanu ka soo jeedno in ay la moral iyo aqli iyo horumar la noqdaan dadka walaalahooda Soomaaliyeed dhinacyada ka kaliya hadda ku soo aadiyay alboos waxa ku soo aadiyay dadana Soomaaliyeed waxay qabaan dadkani Khaatumo waa ogeyn waxay isku dayeen waxayna ku dhamaadeen aakhirkooda ninkii madaxda u ahaa wuxuu ku dhamaad Somaliland inkastoo hadda aan war waxay meel u jiro idinkuna hadda waxaad ku soo aadiseen waqtigii dawladda marka ma is leedahay dawladda hoose idinkuna waa iska warqabtaan arrintaana waxaa rabtaan kulley Somaliland iyo dadka xukuum waa la heshiin doonaaye ya isteegiino halkaas ku jira waxaan ku sheegayaa Soomaaliya hadday u heshiiso waqooyi iyo galbeed waqooyi iyo koonfur waqooyi reer waqooyi waxay u heshiin doonaan 5 gobol oo ku sheegay iyo degmada Buuhood waa Sool Sanaag Sool iyo Sanaag iyo Togdheer iyo waqooyi galbeed iyo Bahar ninka reer Sheekh Saab wuxuu helayaa isagoon ciidamada Soomaaliland xirnayn oo reer waqooyinimo wax ku qaadanaya buu Hargeysa iyo Burcadiisa iyo Berberada waxay u goyso qaadanaya iyo Gibile ninka reer Boorama saasoo kale ninka Ciisana saasoo kale ninka maxaan ku raadaa reer Khaatumo iyo Sanaag iyo dadka warsiga Lumaanta saasoo kale iyo dad kale oo degan ba si xaq iyo xuquuqana loo qaybsanaya berigi 60kii ba saas loo mido hadii la leeyahay war meesha waxay ka khaldantay 60kii dib loo soo bilaabana taasna bala kuma ogin laakiin hadda taas arrintu ma taagna tan kale todor isku aadintana annagu ololahayo 5 bilood ka hor buu bilownay iyo 6 bilood baan midownay nimanka la yiraahdo reer Khaatumana 8 sanad guuradoodii u dabaaldegeen goor dhaweyd marka farmaajo waxtaa ma jirin baxtaa marka bilaa shaqo bilaa amal buu ameelahan u marmaray ma garanaysa oo ra'iisul wasaare iyo xubuu raadinayay laakiin arrintan waxa weeye week ka horba Muuse Biixi iyo bahalka waliba dadku waxay leeyihiin si accident iyo qoladan oo joogay qoladan joogan ba abiye yiri mugti waa ninkii Nobel Prize ka qaatay ba laakiin anu arrinaan ogahay baan ku sheegay Ethiopia nima Tigray la yiraahdaa xukumay ilaa 90 iyo dhowrkii bay xukumeen maalin ba reer galbeed ku la hadleen waxa la yiri Tigray waqtigiina waa dhamaatay wadankana nabad baan u rabnaa abiye inuu la yiraahdo aan cid garanayn baa la soo saaray kadibna waxa la yiri abiye wax ma ku sheegnaa Eritrea u tag dhulka isku dagaalaysan faraha uga qaad 1 milyan oo qof baa ku dhintay dagaalkaas ma aqaan saad ogtahay si fiican la socda dhulkaana faraha uga qaad Eritrea waa qaadan way Eritrea waxa la yiri cuno qabatayntii waa la idin ka qaaday waa tii Nobel Prize la siiyay waxaan u dhawaaska geeska Afrika oo dhan ba isbedel siyaasadeed ka dhacaya in la soo nooleeyaa la raba in la soo nooleeyaa awalna maxaan ku raadday reer galbeedka iyo waxyaabahaas gacanta kula jiray hadeerna waa iska sidii waxba dhici doona marka anigu waxaan oran lahaa qofka tareenka ka hara
asagay u taalla Isu soo taagay. dad badan oo Soomaali ah baa moogtay kulanadaas iyo waxa baalkeyn doona isu soo taagi doona sidii Cabdi Ilay oo kale yaan idinku dhicin baan oran lahaa Waqti ku Cabdi Ilay berigi waxa la gudoomiye meel walba ha joogo qof walba arrimihiisa ha haysto maxaan ku raahdaa in yaan baalkeyn isbedel baa wadan ka dhacay laakiin isagu wuxuu isir Tigraagi baa wali nool buu isiri moogtay waa dagaalamay oo ka wali xabsiga ku jira inkastoo anigu aan ninaan موضوع taageersan مستعد مركز على كهل الدون maya sidii oo kale isbedel Waddacaas waxba markaa karkaraya ka Afrika marka farmaajana dad badan baa waxaan suuqa ka maqlayaa abiya ka dambeeyay abiya ku khasbay abiya kuma khasbay abiya laftiisa wax loo yeeriyay kadibna wixii loo yeeriyay baa kana loo yeeriyay waxoo dhanna waa iska transcript lagu soconayo waa wadamada oo dhan dhaqaalahooda iyo amnigooda iyo waxooda waxa gacanta ku hayay waxaan maanta dhageysanayay gudoomiyaha guurtida Somaliland oo aad u dhaleecaynaya imaanshaha madaxweynaha dalka Soomaaliya Farmaajo dhahayana ninkaas yuusan noo imaanin waxa ka muuqatay inuu aad ugu qanacsanaa inuu Abiy Ahmed uga sokeeyo asaga oo uu leeyahay Abiy waa dhimana wuu imaan karaa Abiy laakiin inuu noo keeno ninka la yiraahdo Farmaajo ka yeelimayno waxa meesha ka muuqata marka in Abiy ariga uu xukumo barnaamijkan Abiy imaanshaha uu imaanaya Hargeysa ma isleedahay reer Somaliland hadduusan Abiy meesha joogin maba loo tageenba ma horta laba arrimood baa jira horta ninka guurtida aad ii sheegto qaylinaya waxa la yiri marka geel la dhaco qofka isla waa lagu qadinayaa intaan la gaarin ba cidihii buu wuxuu ku waashaa wargeela ma naloo qaybiyo oo qof walba wixiisa ma la siiyo nimankan siyaasiyiinta ama guurtida waa Saleeman Gaal meel leeyahay si fiican Saleeman Gaal dawladdiisa aad baro la shaqaysanay صح waa ugu dhacday Somaliland buu inta joogaa ma fahmaysaa Saleeman Gaal waana 90 jir inta ku ilma korsanay siyaasadda iyo baalki marka waana nin weyn oo experience iyo khibrad leh wuxuu og yahay his era waqtigiisa inay soo dhamaatay waqtigiisa inuu soo dhamaatay ma kaligiisa siyaasiyiin fara badan oo afka dhawaaqi doona baad arki doontaa waayo waxa halka ka soo muuqan doonta dadka Soomaaliyeed ee qof walba xayn walba meel ama maxaan ku raaqab qable ama siyaasi qabiil oo ku xirtay ee laga dhaadhiciyay qabiilkaaga wax ku tahay kaliya inay baalkeynayso marka waa qaylin doonaan laakiin sideedaba de nin daad qaaday xumbo iska weeyaan marka abiyana waxa weey imaanshiisa isaga kaliya inuu yimaado ma ku khasbay inuu yimaado su'aashaas saaseed Soomaal de marka qof loo garnaqayo laba qof looma garnaqayo waa in qof dhexdhexaadiya waa ergadii ma garanaysaa Soomaalidu dhaqan bay markay laba qof dagaalamaan oo la garnaqayo dad baa jira guurti oo dhex gala oo labada qof waliba lacag baa la kala qaadan jiray le hagarbay oo waxa weey maadaama aanu idin kala xaq soornay de lacagta inta sabixiye xaqul qalin ka abiye xaqal qalinkiisa de magac buu ku helaya Soomaalidii aan waligeed isu tagin 30 sano baan isu geeyay oo awal miyaysan ceeb ku ahayn Abiy ninka la yiraahdo Farmaajo iyo Biixi miyaysan ceeb ku ahayn in mataqaana ay sheegay in Abiy Ahmed ayagoo dalkoodii jooga inta Abiy Ahmed yimaado ay isku qanciyaan inaysan isla hadli karin isagoon Abiy Ahmed ama xafiiskiisa aysan joogin ama dalka hadii xataa uu isku soo tusay Addis Ababa miyay ceeb ku ahayn in Hargeysa maanta Abiy Ahmed soo fariisto war dheere walaal horta ceebteena aan isku soo aqoon waa gartay mid xaafadiina wax kala looga yaqaana waa gartay Soomaali ceebtu horta ma jirtaa xaafad walba dad baa jooga oo dad ku haysta masaakiin iyo maato ku haysta oo halka cunaha u taagan ceeb u hartay ma jirto ma garanaysaa marka u malayn maayo ceeb inoo hartay ma jirto hadda waxa weeye qofkuna hadda koor Farmaajo miya qofkii la qofku markuu xanuunsado waa in marka hore cudurkiisa la baara daawada loo qoraa kadibna uu daawadiisa inuu qaato in kale isaga jirta hal noocaas u yimid Soomaalidu marka 30 sanadood bay isleeynaysa iyo ka badan 40 sanadood bay isleeynaysa anigu intaan aqliyaysto dhan Soomaalidu waa isdagaalamaysa intaan aqliga lahayn iyo ka horba Soomaalidu waa dagaalamaysa marka hadii Abiy sheegtay waa nin madow oo muslim ah oo daris la ah hadii jin u yimaado xitaa oo wax saxan u wado oo inay qaataan markay yiraahdaan wareed anagu waa waalanahay daawada waalidahana la siiyo caadi waxa dhib ma jirto ceebna ma jirto waa isla kulmi waayay dawladda federaalka u soo noqon dawladda federaalka waxa jira dad mar walba mucaarad ku ah iyo dad mar walba iska taageersan dawladda federaalku mar walba dadka taageersan wax ma tarto
waxay aada u qancisaa mar walba dadka qaylada badan oo dhibka badan. miyaysan waktigii miyaan la gaarin dadka taageerada u ah oo Soomaaliyeed oo danaynaya waktigii wax u qaban lahayd miyaan la gaarin? wallahi niyo horta aniga ra'yi ahaantayda haddaad hogaamiye tahay oo lagu doorto qofkaaga mucaaradka waa inaad dhegaysatid oo aad saaxiib ka dhigatid bal horta wuxuu ka cabanaya aad dareesgalaysid. dowladda anigu aan ogahay in dadka mucaaradka ay muraayadaha ka xiranaysa weliba qaar u dhaga nuglaa waa jireen qaar aan khayr qabinna waa jiraan waa iska aan barnaamijda waxba inay suuro galaan dadka muxaafidka ku ana dee muxaafidnimada in lagu abaalmariyo waa muhiim laakiin muxaafidnimaduna yaanay noqon dee iska ma garanaysaa in dhala-aan iskaga taageer wax waa in wixii jirta dowladna waa in lala xisaabtamo waddanka Maraykan aan joogno waan naqaanaa qofku wuxuu soo bandhigaa waxa uu rabo kadibna waxaa lagu abaalmariyaa wuxuu qabtay marka haddaad tiraahdid Soomaalida muxaafidnimada iyo mucaaradnimadeeda kaaga sheeg